ورحمة الله وبركاته. لالي aad ku jeclaysatiin qalbi furniyeed safi ah kusoo dhawaada. I'm sorry horta, I was not planning in a video sameeyo, laakiin waxay u kalifa xawaaye I saw a disturbing video oo maxaa la dhahaa qoys mana fiicna qoyskana laga hadlo mar hore idin sheegay, but it's really disturbing and waxaan rabay laba arrimood inaan taabto insha Allah hadduu waqtiga ii saamaxo weeyaan inuu video u dheeraado ma rabo. Marka horta as the more generation keena maxaa la dhahaa aan sii socono waxaa waaye the more oo divorce like kala tagitaanka uu aad u batay waxaa sababayana waa arrimahan oo kale oo maxaa la dhahaa qoyskan ku dhaqmayaan waayo dadka markay guur galayaan waxaa fiican inay ogaadaan the reason as to why they want to settle down, you know. Don't settle down when you're not ready. Sometimes when you're not ready wallahi waxyaabo qaar waxyaabo badan ayaa soo bixi kara, waxyaabo badan ayaa dhaxdiina idin mari kara li'annahu qof walba different type of expectation ayuu watay and you don't know the real meaning of settling down, the real meaning of maxaa la dhahaa qoyska wuxuu ku dhisan yahay aasaaska qoyska noloshiina wax ligaaga baahan yahay maxaa la dhahaa xaqiin iyo xuquuqdiina haddaadan garanaynin waxyaabahan oo kale ayaa soo baxaya. Videoga ma jeclaysan inaan halkan idin soo dhigo waayo badankiina waad fiirsateen, YouTube waa la soo dhigay, TikTok waa aragteen, qaarada Snapchat way soo dhigeen, Facebook waa la soo dhigay. Ala kulli xaal adiga meelan la soo dhigin malahan, okay? Marka ani ma jeclaysan. Anyways, and waxaan rabay inaan idin dhaho dumarka Soomaaliyeed walaalaheena horta anaga waxayna u badannahay and like two narcissistic behaviors badanan inaan soo shaabixino. Maxaan ka wadaa? I'm not saying all Somali women, I'm not saying all of us as but majority of us waxayna u badannahay labadan dabci inaan noqono always right, like mar waliba anaga saxsan. And mid labaadna we are always the victim, like anaga qaladkana laga gala no matter what we do. And as I always said, video horena waan soo sheegay haddana waan ku celinaya, never ever in your life haddaan nin tahay haddaan naag tahay oo aad tahay xaas mise aad tahay maanta nin oo xaas u joogto, never tolerate mental, physical and emotional abuse. maxaa ka wadaa? weligaada ha ogolaanin ina abuse lagu geysto maskaxdan, ina jirkaada la jirdilo oo gacan loogu qaado, ina qalbigaaga jibiyo oo lagu bahdilo mar waliba ha ogolaan. ma fahantay? ogow xaqaadi, fahan xaqa iyo xuquuqda aad ku leedahay xaajigaadi mise xaaskaagi, okay? And then adigana waxaad ogaataa xaqa iyo xuquuqda uu xaajigaadi mise ay xaaskaadi kugu leedahay. intaas haddaynu fahanno waxyaabaha kale straight aynu noqonaya, like patience waxaas dhan way mar waliba waxaa lagu dhahaa dulqaado. maxaa la qoysko hal qof ku dhisan yahay, is true hal qof ku dhisan yahay. At the end of the day patience waxa waaye is good. waxaa la ninkii sabro ayaa sadkiisa hela, ma fahanteen? marka is true but weliga waxyaabahaas oo kale ha u dulqaadanin. wax kale oo u dulqaadan kartaa but haddaadan xishmo helaynin oo kalgacaylaad helaynin oodan attention helaynin oodan xaqaada lagu siinaynin oo lagu sii bahdilaayo waxaa ka joogtid meesha I don't really get. ma fahanteen? And then as I said waxaanu ku noqonaynaa labada arrimood oo aan ka hadlay maanta, taas oo ah inay dumarka Soomaaliyeed aynu jecelnahay inaynu noqono always right and playing the victim. Okay, ragga Soomaaliyeedna way jiraan oo saas u dhaqma, I'm not gonna lie, way badan yihiin way jiraan. So if you see yourself haddaad tahay qof maanta oo qoys dhaqanayo, rag iyo dumarba, haddaa isku aragtay labadan shay, know that that's a narcissistic behavior, waa inaad iska bedeshaa. Always markaad tahay aad rabtid inaad saxsanaatid, midda kaleeto inaad victim noqotid, okay? For example, videoga aniga aan soo fiirsaday waxaan arkay marar qaar oo gabadha ayada iska dhigayso inay ayada saxsan tahay oo kale ay leedahay kuwan ma dhib baa xitaa taqandanta inaad talaagada biyaha aad kasoo shubato aad kasoo bixiso, like maxay kugu tahay, maxaana ii dhibay? Like for her whatever she's doing waxa waaye TikTok live ay ku jirtaa, she's doing all that BS, ninkeeda gadaasheedu jifa. how nin inaag maanta isqaba inuu ninka banaanka baxay soo shaqaysanaa ama adiga waa baxday oo soo shaqaysanaysaa
qof walba meel buu ku mashquulsan yahay ama ilmaha ku mashquulsano ama at the end of the day wax le bini'aadamka the whole day isma hor fadhin karaan waa la kala danaystay then habeenkii isku imaadeen tell me how oo qolka isla soo gasheen oo sarito ninkaaga jiifo telephone qaata live gashay mise naagtaada u joogto to me wallahi I don't know about you but to me it does not make sense haddii saas ceysh lagu raadsanayna aniga I don't know ma garanayo and I don't want to talk about it I'll leave it at that marka ayadoo isla saxsantay ma aragtid then number 2 maxaa igu qaylinaysaa maxaa yeelaysaa already she's the victim like how are you the victim ninkan wuxuu ku dhahay waa qandhanahay abaayo waa daalanahay waxaan naga dhaaf kalibi iso shub at least he is like he's craving for attention wuxuu u baahan yahay inaad waqti siisid inaad daryeeshid because waa qof xanuunsan ma fahanteen ragana badanaa markay xanuunsan yihiin waa caruur oo kale runmaa isku sheegaa masabeen marka waxay u baahan yihiin inaad daryeeshid inaad waqti siisid wuxuu u baahan yahay inaad siisid sidii adiga u baahnaan lahayd maanta in lagu sameeyo marka xanuunsan tahay waa inaad maanta qofka aad nolosha la wadaagtay aad u samaysaa mar waliba idinku soo celinaa wax alaala wixii adig maanta in lagu sameeyo aad jeceshahay inaad u samaysid qofka maanta nolosha aad la wadaagtay oo aad dooratay ifkaba inaad u samaysid way wanaagtahay ma intaas misla fahne marka ayaan ka hadlaya we are getting married for the wrong reasons qaladka number 1 dhaca waxaa waaye ma ogin waxay guurka macnaheedu waxay tahay bal anaga horta alxamdulillah I think before waxaa jiri jirtay waa duqushinka way kula fariisan jireen oo ku sheegi jireen naagta waxa laga rabo ninka waxa laga rabo laakiin maalmahan ma jirto anaga le banaankaas soo baranayno waa iskeensanayna hada wasalaan wala isku yaacay hadalkii meesha ku dhamaado so there's no that type of training wixii dhan waxaan ka dhignay taabu waxaan ka dhignay wax hore ma fahanteen wax horena ma ahan I think hada generation ka waxaa jirta wax buugaag baa la qoray buugaagta akhrista maxaa la dhahaa a lot of research sameeya and maxaa la dhahaa dadkan oo marriage counselors u taga at least get to know what you're getting into if you're ready and you're willing to mashallah tabarakallah mabruk alf mabruk guur khayr qaba Allah idinkaga dhigo laakiin haddaad aragtid inay kuga adag tahay gabarey miswiilo loo hada gadaal u dhig because guurkan lagu sheegay ma aha dating ma aha isbarasho waa ka gudubteen taas waa nolol aad wadaagaysin you get to see the bad and the good side of that person fahanteen marka aynu isfahano qof walbo nolol ayatiin dambe ayuu u baahan yahay ayatiinkiina dambe ka fikira caruurtiina ka fikira dadkan aad bahdilaysaan iska dhaafa qofkan haddaaba la joogi karinba oo you have that much of disrespect ma aragtay kala dhamaada ka tag kala farxalan dheh laakiin qof bahdilaysid iska dhaafa intaas ay idin dhahi lahay tiktokna nolol maahan youtube-kan aad noloshiina anaga soo dhigayno mana anfacayso haddaad ku raadsanaysin cloud I don't know but taas ma ficnogo waxaa la balada barta waa baaska ma fahanteen marka waa inoo video dambe oon ka hadlayno waxyaabahan iyo wax lamida insha Allah marka waxaan leeyahay subscribe like tana ha iga ilaabina assalaamu calaykum